Asalaamu calaykum. Muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay qaabkee ku ogaan kartaa taleefankaaga maskaxdiisa iyo RAM-kiisa. Macnihii RAM-ka waxaa laga wadaa speed-ka taleefankaaga uu ku kacayo. Taleefannada waagi hore daaskii haddaad taqaan ama niclayaashii waagi hore shaqayn jireen waxay lahaayeen RAM bay lahaayeen. RAM-kooda markaa aad u hooseeyey. Qaarkood waxay ahaayeen KB, qaarna waxay ahaayeen GB. Marka hadda anaga muuqaalkeena waxaan kaga hadlaynaa qaabkee ku ogaan kartaa taleefankaaga storage-kiisa uu leeyahay iyo RAM-kiisa. Maskaxda taleefanka ayaa waxaa la yiraahdaa storage. Haddii taleefan cusub lagu siiyo ama aad soo geyso taleefan cusub ama taleefankaas aad raadinaysid, waa inaad ku raadsaa storage ama RAM. RAM-kiisu inuu sareeyaa, storage-kiisu uu sareeyaa. Si taleefankaas culays badan aad kala kulmin markaad isticmaalaysid, aad game ku dheelaysid ama wax kale aad ku sameynaysid. Kaasoo ka caawinaya in taleefanka culayska badan uu ka haro. RAM-ka waaye waxa ku caawinaya. Okay, waxaad tagtaa taleefanka, waxaad ka tagtaa settings ka tag. Settings markaad tagtid kadib waxaad doorataa meesha ay ku qoran tahay battery and device care. Battery and device care waxaa ku jira halkaas ku dhufo. Marka halkaas ku dhufato waxaa ku jirta iyada battery baa ku jirta. Batterygaas waxaa ku ogaanaysaa batterygaaga markii aad buuxisid inta saacadood uu ku haynayo. Waxa kale ka sii hooseeya waa storage. Storage-ka isagana halka u socono waa storage-ka inta taleefanka maskaxdiisa ay tahay. Okay, waxaa ka hooseeya iyadana memory. Memory iyada waxaa waaye RAM-ka waaye. RAM-kaas ayaa ogaanaysaa taleefankaaga intuu yahay. Hadduu 6 yahay, hadduu 4 yahay, hadduu 3 yahay, hadduu 2 yahay, wax walba uu RAM-kaagu yahay, halkaas ayuu kugu soo qori doonaa. Okay, qaybtaas kore batteriga iyada waa badsan kartaa saacaduu ku haynayo waa badsan kartaa. Taas iyada muuqaal kale aan ka samayn doonaa insha Allah. Waxa kale ka hooseeya waxa la yiraahdaa iyadana device protection. Device protection waxa waaye taleefankaaga haddii dad waxaa jirta games ku dheela iyo waxaa jirta application oo virus wata taleefanka lagu soo shubato. Marka isaga device protection ayaa la yiraahdaa. Haddii taleefanka uu kululaado wuxuu ka tirtirayaa kuleylka ayuu ka baabi'inayaa. Haddii virus soo galana taleefanka scan ayuu ku dhahayaa mari taleefankaaga si viruskaas aan uga saarno. Marka isaga waa device protection uu wato oo shirkaddu ku soo saartay waaye, kaasoo ka caawinaya inuu ka hortago fayrasyada taleefankaaga soo gaara. Sidoo kale haddii taleefankaaga kuleyl uu noqdo iyo haddii taleefankaaga uu culays iyo dhankan isjaam gareynta uu ka soo raaco faylal oo kaaga soo degay dhanka browser-ka.